السلام عليكم. አምና በዚህን ጊዜ የመጀመሪያ ጉብኝት ያደረኩት እዚህ ቦታ ነበር። የአምናው መንፈስና የዛሬው መንፈስ ልዩነት በግልጽ ከፊታችሁ ላይ ይታያል። sanadkii hore markii aan waqtigan oo kale socdaalkaygu ugu horeeyay aan halkan ku imid sidii uu xaalku ahaa iyo isbedelka hadda jira wajigiina ayaa laga arkaa. የዛሬ ዓመት የመጀመሪያውን ጉብኝት ወደዚህ ስናደርግ sanadkii hore markii aan socdaalkaygu ugu horeeyay halkan ku imanayay odayaasha deegaanada Soomaalida iyo Oromadu waxay aad ugu dadaalayeen sidii ay u soo afjari lahaayeen isku dhacyadii labada shacab annaguna ujeedada aan waqtigaas u nimid waxay ahayd in aan codsanno hirgelinta isbeddello cusub iyo in aan xal ka keenno khilaafkii jiray. laakiin sanadkan waa sanad la sii daayay maxaabiistii xidhnayd oo ay deegaanka ku soo noqdeen ururkii ONLF oo muddo dheer xorriyadda shacabka Soomaalida u halgamayay ayna ka shaqaynayaan nabadgelyada iyo horumarinta deegaanka Soomaalida. ለረጅም ጊዜ ክልሉን ከሌሎች ህዝቦች ጋር ተቀራርቦ እንዳይሰራ ሲያደርጉ የነበሩ የሥራ ኃላፊዎች በህግም ከኃላፊነትን ተነስተው በሶማሊያ አየር ላይ አዲስ የሰላም ንፋስ የነፈሰበት ዓመት ነው ማለት ይቻላል። مسؤولينتي ka shaqayn jiray sidii ayna shacabka deegaanka Soomaalidu nabad ugu noolaan lahayn ummadaha deegaanada kale ee jaarka la ah deegaanka xilka si sharci ah looga qaaday. arrinta ugu weyn ee aan mar walba isweydiiyo ayaa ah Soomaalida Itoobiya. idinkuna mar walba aad dhihi jirteen wadankan Itoobiya oo ayna ka jirin Oromada Itoobiya, Tigreega Itoobiya ama Amxaarada Itoobiya maxaa Soomaalida Itoobiya nolol leeyahay muwaadiniinta labaad baan nahay. ስለዚህ ኢሶዴፓ ይሄን ችግር ተረድቶ ሶማሌ ዲሞክራቲክ ፓርቲ ማለቱ አዲስ የለውጥ እርምጃ ነው። in aad idinka laftiinu xisbiga dimuqraadiga shacbiga Soomaalida Itoobiya u bedeshaan xisbiga dimuqraadiga Soomaalida waa tallaabo cusub oo isbedeleed oo aad ku tallaabsateen. የተከበራችሁ የሶማሌ ህዝቦች የናንተ ድል የናንተ መሻገር ከሌላው የኢትዮጵያ ህዝብ ተለይቶ ስለማይታይ በእናንተ ክልል ውስጥ የሚገኝ የትኛውም ኢትዮጵያዊ እንደ ሀገሩ እንደ ወንድም ህዝብ በኩራት እንዲኖርና እንዳይሳቀቅ እንዳይፈናቀል እያንዳንዳችሁ እንደ ፖሊስ ሆናችሁ ህዝባችንን እንድትጠብቁና የኢትዮጵያዊነት ምልክት እንድትሆኑ አደራ ልላችሁ ፈልጋለሁ። shacabka sharafta leh ee deegaanka Soomaalida maadaama aan guushiina iyo dhibaatadiina aan loo eegayn si ka duwan deegaanada kale waxaan idinku baaqayaa in aad ilaalisaan qoomiyadaha kale ee deegaankiina ku nool oo ayna barakicin oo ay nabadgelyo iyo xorriyad ku noolaadaan isla mar ahaantaana aad dhammaantiin noqotaan sida booliska shacabkeenana aad ilaalisaan oo aad calaamadda lagu faano ee Itoobiya noqotaan እንድትጠብቁና የኢትዮጵያዊነት ምልክት እንድትሆኑ አደራ ልላችሁ ፈልጋለሁ።